waxaan warbixinaa dee weli xaaladdu waxaan ku warbixinno ma haynee aan ogaano horta inaynu cid dambe badbaadin ilaah baa weyne aad u weyn baa degmada ka daayay roobkaasi khasaaro badan buu geystay roobkaasi 4 saacadood buu degmada ka daayay roobkii markii uu daadi waayay waxa dhacday daad saddexdii doox ee magaalada ka sareeyay buu isku soo dareen ballayadii magaalada ka sareeyayna barkood baa soo jabay kadib waxa dhacday hodheelkii ugu hooseeyay magaalada oo dad badan oo in socotaa iyo in degmada dadkii raadilaadahaaba ku jireenba sanqadii buu qaaday la isma tirsanin khasaaro badan baa jira dhowr iyo 10 qof waxaan ka soo gurnay geedaha ay fuuleen in badan oo uu qaaday oo maqanna waa jira imika ilaa 6 qof oo garanaynaa marka wax wali la isma tirsana marka bari subaxa ayaa ilaa caawada waa shaqaynayna anagu bari subaxa war go'aan la heli doonaa dadka maqanay oo qaaday baan ognahay anigoo marka hore ku sameeyay mid ugu horeeyay qaaday ninkii dhalay baan haanu ee la badbaadiyay waxa la magacayga shacabka waxa ka soo dhaqaaqay markii ugu horeysay la sheegay gabadheedii ugu soo qayladaan soo dirtay goorama waxaan ugu yimid dadka oo geedaha saaran 6 ka mid ah saareen geedka imka dhinacay naga xiga afarna ay saareen geedka waxaan isku daynay oo dadaal muujinay balna dadkan sidii aan ku badbaadin lahayd falowgeedan galno aniga oo dadka reer Dilaad iyo taageerayaal badan oo isku tiirsanay waxaan isku daynay inaan dadkii soo badbaadino waxaan ka soo badbaadinay afartii ugu horeysay geedka markii aan xarig isku xidhnay gaari kamid oo halkan joogina aan ku xidhanay ilaahay uu nagu soo astro waxaan dadkii oo soo badbaadnay haddana waxaan isku daynay 6 meesha mawjadka ugu weyn ku jirtay meesha ugu weyn 6 ku jirtay oo kamid ahaayeen dhalinyarada kubadda ciyaaraysay oo halkaas saarnaa waxaan ilaahay uu nagu asturay aniga tahay dadkii reer Dilaad oo biirsanay ilaahay uu nagu soo asturay 6daana sidii baan ku soo badbaadnay imikana ugu dambeyntii gabadh geedka ku jirta oo run oo halka deganeed oo ku haystay meherad yaan hadda ugu dambeyntii laga soo saaray geedka hoostiisa loona qaaday imika boorama waxaan ugu xunruun iyo qaar jaban oo kale iyo odagayga oo jaban inta maqanay kalena dawaan xaga dambe ku soo sheegi kartaa bismillaahir rahmaanir rahiim aniga waa magacaygu Cabdiqaadir Salebaan Aare kana mid ah dadka ka soo jeeda degmada Dila anigu waxaan ahaa dadkii gurmadka u gurmaday degmada Dila ee samata bixinta ku jiray anigu waxaan ilaahay ku arkay dad 20 qof ku dhow oo daad ku sito laakiinse way noo suurtagal weeyeen inaan badbaadino daadka xoog leh ta aawadeed waxaan maxaa heeday imika aanu haynin imika waxaan ka soo saarnay dad ilaa 10 gaaraya oo ay ku jirto gabadhii hoteelka lahayd oo imika noolii geeri u dhaxaysa oo hadda boorama loo qaaday dad kale oo feedhaha ka jabay dad dhaawaca intuba way jiraan laakiinse lama ogaan karo imika maxaa heeday cid dhimasho iyo cid dhaawaca imika ma hayno ma ogaan karno